shirkii nabadaynta beelaha diriirtu ku dhex martay deegaanka Ceel Afweyn ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay degmada Ceel Afweyn. ergooyinka nabadeed ee gobolada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland, culimo awdiin, odayaal iyo ergooyinka labada dhinac ayaa goobjoog ka ahaa shirkaasi maanta ka bilaabmay magaalada Ceel Afweyn. shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay oo goobjoog ka ahaa culimada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo erga isaga timi gobolada iyo degmooyinka dalka oo ahayd ergooyin iskood isu xilqaamay. xubno ka tirsan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hormuud u yahay wasiirka wasaaradda amuraha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Boos Mire Maxamed. waxa kale oo ka hadlay shirkan wasiirka shaqagelinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Hinda Jama Xirsi. waxa kale oo ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Muuse Abees oo isagu shirkaasi soo gaaray saaka, iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha. hadalladii ay mas'uuliyiinta kala duwan madashaasi ka jeediyeen waxaa ka mid ahaa: mudanayaal, arrintaynu maanta halkan u joogno xog yaroo kooban haddii aan in yar ka dhiibo iyadoo la wada hayo waxa ay ku kooban tahay colaadda maanta halkan ka taagan. dhacdooyinkan u dambeeyey ilaa teedii u horreysay muddadeeda marka laysu geeyo waxay ku dhowaanaysaa muddo 3 sannadooda oo laysku noqday mar walba la yimi, mar walba laga garnaqay. shaqaaqadaas colaadaas waxay sababtay dhimashada marka laysu geeyo horeysa iyo dambayso waa tiro 60 qof ku dhow, ama qof baa ka dhiman ama laba ka dhiman. nin askari oo dhacdada ku dhintay marka lagu darana 60 ka buuxsamaya. waxa dhacdadaasi ay leedahay tiradada oo 150 ku dhow oo rag u badan haweenna ay ku jiraan. dhacdadaasi waxay sababtay in magaalooyin fara badan oo labadan beelood ay degan yihiin maanta laga barakacay. colaadda awgood waxna looga joojiyey, waxna iskeed looga barakacay oo maanta nolol aanay ka abuurnayn. inaynu wanaajinno wixii khaldama dhexdeena wanaajinno. adduunyeen joognaayo kulliba la isku khaldamayaa, dhibtu way imanaysaa, shaydaan baa inala xidhiidha. intaas oo dhan waana ilaahay subxaanahu soo raaciyay baa jirta oo kitaabka Allah ah. markasta ilaahay wuxuu nagu waaninayaa walaaltinimada iyo wadajirka. sidaan mashaayikda waxa leeyahay iyo culimada diinka iyo odayaashuba inay ku celceliyaan oo ummadan u sheegaan. ummadan inta badan 90% dacaayado moobilada la geliyo baa si kala fogeeyay oo halkaa geeyay. waxa halkaa si kala geeyay niman qurba joogan cidina ka joogin meesha oo iyaguna marna wax soo dira marna Facebook geliya. culimada diinka iyo waxaan ku sii boorinayaa odayaasha inay sidaa imika sheekhu uu sheegay ay u sheegaan kan Facebook wax gelinaya inuu kii wax dilay la dambi yahay. war lama aragnin abtigii col u ah, lama arag. war lama aragnin seedigii col u ah, war lama aragnin gurigiisa iyo gogashiisa gubaya. war habar lamaani waa qof iyo maryihiisa weeyaan, ma kala bixi karaan. wixii la idin sheegay ee kaleba waxba kama jiraan. والله بيدان u kala baxayn ilaa maalinta Ilaahay hortiisa la taagan yahay mooyaane. sababtu waxa weeye ma jiro guri ilaa iyo hadii uu jiro oo labada reer uu ka mid yahay qolada kalena way ku nooshahay gudihiisa. xaaskiisa ayaa ah, hooyadii ayaa ah, waxa weeyaan walaashii buu qabaayo ubadkii walaashii dhashay ayaa jooga. war ma kala bixi kartaan oo ma kala hadhi kartaan. ma tihidin dad kala hadhaya, ma tihidin. waxaan idin leeyahay bini aadanku waxay u turaan ama naftooday u turaan ama ehelkooday u turaan ama dhagtooday u turaan ama dhalashadooday u turaan. intaa midna maydan xeerin, intaa midna umaydan turin. waxaan idin ku darayaa ilmaadeen reeyal haddaan idin la kaftamo, haddaan kaftan ku dara hadalkayga waxa la yiraahdaa nin bari nirigta gaaroodi ku dhalatay baa dhaanta. waxaan qirayaa inay run tahay oo aanay arrintaasi been ahayn. habar lamaan baa garan lahayd waxa ay isu yihiin.
waxay garan lahaayeen kitaabka munazilka ah ee ay 10 goor mareen iyo waxa ay ku dambaysiiyeen in ilaahay kala xisaabtamayo waxaan idin leeyahay war bari oo dhan waad baabiiseen oo waad ceebayseen naftiinina waad baabiiseen dhaqaalihiina waad baabiiseen dhalashadiina waad baabiiseen waxaan idinku gabagabaynayaa maanta ragga halka fadhiya ee culimada awdiinta leh ee salaadiinta leh ee garaadada leh ee boqorrada leh waxay u yimaadeen nin idin garanaya ma jiro waxa jooga dad inay maqlaan mooyaane aan wali bari burco soo gaadhin ayaa maanta halka fadhiya ilaahay waxaan uga baryayaa inuu miisaanka xasanaadka socodkooda ugu daro iyo kelmadoodaba waxaan idinkana idin leeyahay waxaad kaliya oo qiimaysaan dadkaasi maxay idinka doonayaan ma jiro qof wax idinku qaatay qof wax gaar ah idinka rabaana ma jiro ilaa iyo inaad naftiina u hagaagtaan oo aad guryihiina wada qafilan ee kabajaagu ka dilaacay cadhadiiniba waxa ka dilaacay kabajaa ceelaf weyn gurigii la galaba ka jabaaba ka buuxa war ilaahay ka yaaba oo guryihiina dib aad ugu soo noqoteen oo ka jabaagu ha idinka guuree isu turo ilaahay ka xishooda waxaynu ognahay bini'aadanku tacmiirta dhulka waxa uu ku camiraa waa marka ay dadku ay tiro leeyihiin magaalada Ceelaf Weyn waxay ahayd magaalo koraysa magaalooyinka gobolka Sanaag ka duwan aad iyo aad u koraysay dhaqaale badan lahayd maantana waa aragtaan sida u eg tahay haddii aan nabad loo helinna waxa imanaysa ninka wax haysta iyo ninka waxgaradka ahi iyo ninka aqoon-yahanka intaba inay ka tagaan hadday tagaanna waxa laga yaabaa meel fiican oo ay lacagtoodu lacag ka badantii halkan ay ka heli jireen u dhasho meel laga ixtiraamo ninka waayeelka iyo waxgaradka inuu helo isku meeleeyo dego halkanna looga tago dadaan islaamin oo indhaha iska muda maanta roolka halkan maanta inoo yaala waxa weeyaan in aynu maanta labada daraf ee walaalaha ah ee masiibadu soo kala dhex martay aynu maanta oo bilow ah la isu dhageysto oo aynu ku wareejino qoladan culimada diinka ah ergada iyo dhaqanka iyo culimada diinka inaynu ku wareejino madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu fariin u diray dhammaanba cid kasta oo kamida xubnaha kala duwan ee ergada ee madashan ka soo qayb galay waxaanu tilmaamay in laga bilaabo hadalkiisa ay la wareegi doonaan shirka iyo gudoomintiisa iyo gudagalka howlahaasi ergooyinkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay shirkan waxaana hadalladii madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ahaa shaqaaqada Ceelaf Weyn sida laga waramay oo wasiirka daaqilku soo koobay dhibtii dhacday halkay khasaaruhu gaadhay markaan aragnay inay soo noqon ay hawshii joogsan weyday markaan la tashi badan la sameynay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada culimada diinka Soomaaliland dhaqanka Soomaaliland magacu doonaha lahaado asxaabta qaranka aqoon-yahanka Soomaaliland waxay ka geyn weyday in ergada maanta halkan fadhida ee goboladii Soomaaliland oo dhan matalaysa ee culimada dhaqan isku jirta in halkan la isku keeno si hawshaasi soo jiitantay muddo dheer loo soo afjaro xukuumadda waxay adkaynaysaa ama hortiina ka balan qaadaysaa in hawsha wixii nabadgelyo ah ay culeyskeeda iyadu qaadanayso garnaqa iyo walaalaheena sida la sheegay dhasheedaha ee magaca gaarka ah ee si gaar ah u maartay loo yiri habar lamaan yaanu ilaa xukuumadda hore waan joogo magacaasi markii igu horeysay maqlo waxa la qiyaasay oo la yiri beelaha kale markay siyar dhibi ka dhex dhacdo way yar kala guuraan waxoogaa way yar qaybtami karaan magaca habar lama wax lagu bixiyaa leeyo meel kala tagaan ma male marka marday saas tahay maanta waa loo dhayahay annaguna waxaan diyaar u nahay in maartay nabadgelyada gacan bira ku qabano oo mas'uul ka noqono waxa kale xukuumadda Soomaaliland si buuxda u furin doontaa waxa leeyahay ergada soo saarto sababtoo ah
dee ergadaas waa erge ilaahay waa ergadan wuxuu dhiibanay wixii ay garato iyadoo la ogyahay inaynan maanta iyagu cidna aynan dhinac saari doonin oo erge ilaahay yihiin waxay soo saaraan ayay xukuumaddu si buuxda u fulin doontaa waxaa hadda saacadda aan joogno laga bilaabo shirka waa inoo furan yahay waxaanu ku wareejinaynaa annagu haddaan xukuumaddii nahay shir guddoonka la wareegi doona waxay idinka rabaan iyo siday u soconayso gartu iyo maaragtay erganimadu waxay nii sheegi doonaa culimada iyo madax dhaqameedka erge waa isku ergee ergadaa wada socota iyaan ku wareejinaynaa saacaddaa laga bilaabay iyaan ku wareejinaynaa iyagaa idiin sheegi doona in wixii idinka rabaan iyo siduu shirku u soconayo qolada madaxda ee iga hadhaysa ee joogaysa ay dhagaystayaal u bay ahaanayaan markhaati u bay ka ahaanayaan maanta iyo markhaati ka ahaanayaan iyo halka hadal ka xidhmayo intii ka dambaysana dibadda idinka joogayaanoo waxay ku shaqaynayaan madaxda halka ku hadhaysaay wixii ergadaasi uga baahato iyo amniga aan ballan qaadnay inta gogoshaas jirta ina maaragtay nabad aan ku gogosha ku fadhino